igu soo waan geystay si ka saar u geystay kulle wuxuu dhinto iga qabe haddana kiiskaas maxkamaddu farmaa muhiimad waa kan ninkaan hortiina ka muuqda in ayuu dilay oo weliba si kas u dilay misna maxkamadda horteeda ayuu ka qaranayaa in ninkaas anaa dilo leeyahay dhiiggiisa ninkaas ha laga simo geesi waaye geesi ilaa hadda muuqaalka alla yaaba ninkaan si kartida wuxuu leeyahay ninka anaa dilay oo si kas ayaa u dilay waxaa maxkamadda ka codsanayaa in hadda lii fuday oo tiirka geeyo oo laga xadiyeeyo oo ninkaan dhiiggiisa laga reebo wallaahi geesi waa muuqaalka oo dhegeysano dooda dhexmaraysa maxkamadda iyo asagaba waa nin la yaab leh waa ninkii labaad caabad waa noocaas ka noqda oo dhow hala togto saxibkaana dilay codsi ahaan waxaan soo jeedinayaa in xukun lagu oofiyo xaqa saaran oo lagu xukumo xukmu dil toogasho xaqa in lagu oofiyo aan rabaa codsi ahaan waxaan soo jeedinayaa in xukun lagu oofiyo xaqa saaran oo lagu xukumo xukmu dil toogasho xaqa in lagu oofiyo aan rabaa codsi ahaan waxaan soo jeedinayaa in xukun lagu oofiyo xaqa saaran oo lagu xukumo xukmu dil toogasho xaqa in lagu oofiyo aan rabaa codsi ahaan waxaan soo jeedinayaa in xukun lagu oofiyo xaqa saaran oo lagu xukumo xukmu dil toogasho xaqa in lagu oofiyo aan rabaa codsi ahaan waxaan soo jeedinayaa in xukun lagu oofiyo xaqa saaran oo lagu xukumo xukmu dil toogasho xaqa in lagu oofiyo aan rabaa igu soo waan geystay si ka saar u geystay kulle wuxuu dhinto iga qabe haddana kiiskaas maxkamaddu farmaa muhiimad waa kan faran aad ka hadashay waa la kiiska aanu hadda ninkuu dilay ma ahan kiis noor yaalla ninkii waan dilay si kasaana u dilay codsi ahaan waxaan soo jeedinayaa in xukun lagu oofiyo xaqa saaran oo lagu xukumo xukmu dil toogasho xaqa in lagu oofiyo aan rabaa igu soo waan geystay si ka saar u geystay kulle wax la yaab leh inay noqoto waa muuqaalkii lala yaabay ee dadka adduunkana ay dhegeysanayeen ninkaan anaa dilay waa saaxiibkii ayuu ahay dhiiggiisa maanta ha laga jaro oo maxkamaddii ayuu horteeda ka hor qartay inay toogtaanba maxkamadda inta xukunka ay ridinba asaga ayaa toogasho jeclaaday waa arrin cajiiba waa qofkii labaad ee caabud waaq noocaas kala sameynaya taariikh ayuu sameynaya in dhiigga qofka dhib leeyahay si ayaa ku garo ninkaani asagoo la xukumin ayuuna sheegta qartay in dhiigga qofka laga dhibo oo ninkaas anaa dilay kama xataa kaba ma kas ayaa u dilo yiri ilaahu dhiigsan la gelin waa qofkii labaad caabud waaq arrinkaas ku kaca ummadii halkaa jirtay way afkay qabsadeen maxkamaddii intii xukuminbo asaga ayaa xukun isku ridabo oo toogashaa isku riday waa wax la yaab leh war muuqaalka meel gaarsiiya ilaahu dhiigsan la gelin qof walba muuqaalka daawanayo dhiiggiisa iska ilaaliyo dhiboo leeyahay asaga ayaa ka hadalshiina ninkaan hadda waa laga hadalshiyey in toogasho ay isku dayaan naftiisa ayuu toogasho u dhiibay adduunka waa ka qoosay wuuna qirtay inuu walaalkiis asaga gacantiisa ku dilay ama saaxiibkiisba war muuqaalka meel gaarsiiya dhiig islaam qatar waaye hal iska ilaaliyo ninkaan odaga maanta arrin karti leh geesimo leh oo berina iimaankiisa meel fiican u gelayso oo dhiiggii halkaas adduunka oo ku galay oo aakhiro loo haysan ayuu maanta si saa u sheegtay maxkamaddii ayaaba af gacan saarto hali toogto saaxiibkii anaa dilay ayay dooliga ina adka sheegay muuqaalka